Assalaamu calaykum. Dalka Shiinaha, dhulka wax soo saarka iyo warshadaha, sidoo kale dalka ugu dadka badan caalamka, meel ay ku nool yihiin 1.3 bilyan oo qof. Ku soo dhawaada barnaamijka maanta oo ku saabsan dalka Shiinaha. Waxaa lagu magacaabaa China Jungwa luqadda Chinese-ka iyadoo laga soo qaatay ereyga Jin waana waddanka ugu dadka badan adduunka iyadoo ay ku nool yihiin wax ka badan 1.3 bilyan oo qof. Dalka China waxa uu ka kooban yahay 20 gobol halka Hong Kong iyo Macau ay leeyihiin xukun hoosaad sarreeya. Waddanka intaas oo qof ku nool yihiin waxaa dabiici ah inuu aad u ballaaran yahay bad ahaan waana waddanka afraad ee ugu badka weyn caalamka bad gaaraya 9 milyan kiiloomitir square. Shiinuhu wuxuu leeyahay xeeb aad u dheer oo masaafo gaaraysa 14,000 kiiloomitir kana soo bilaabanta xuduudka Vietnam laguna geeyo xuduudka Kuuriyada Waqooyi waana inta badan qaybta bari ee Shiinaha ee kulaalaysa badda. Diimaha ugu caansan waddanka Shiinaha waa diin dhaqameedka sida Buddhism-ka, sidoo kale waxaa laga helaa 70 milyan oo Masiixiyiin ah iyo in ka badan 100 milyan oo Muslimiin ah. boqolkiiba 99 Muslimiinta ku nool waddanka Shiinaha waa Sunniyiin, waxaana laga mamnuucay Muslimiinta Shiinaha soonka, raggana waxaa laga mamnuucay garka inay deystaan, dumarkana xijaabka iyo indhashareerka. Waana qaybo ka mid ah gobollada xagjiriinta ah ee Muslimiinta neceb. Tan iyo markii dhaqaalaha Shiinaha dib u habeyn lagu sameeyay oo la hormariyay habsocodka suuqa sanadii 1978 waxa uu noqday dhaqaalaha mid aad u sarreeya waxayna noqotay dawladda koowaad ee wax dhoofisa iyo tan labaad ee wax la soo degta. Dhaqaalaha China waxa uu ku jiraa kaalinta labaad marka laga soo tago waddanka Mareykanka. Inkastoo tirada dadka Shiinuhu ay aad u badan tahay, haddana in ka badan 93% shacabka Shiinaha waa dad aqoon-yahano ah. Shiinuhu waxa uu caalamka ku soo kordhiyay taariikh ahaan waxaa ka mid ah warqadda, baaruudda, jihayaha, lacagta warqadaha ah iyo waxyaabo aad u badan. China waa dal dalxiis oo aad u ballaaran waana dawladda afraad ee dalxiisayaasha ugu badan hantisa iyadoo qaabisha 50.9 milyan oo dalxiise. Darbiga weyn ee China, qasriga Butala, magaalada la xarimay, dekedda Victoria iyo ciidanka dhoobada waxay ka mid yihiin meelaha ugu caansan ee dalxiiska loo yimaado dalka China. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka Iliska Dunida, subscribe dheh oo ku soo biir si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub. Si aad u hesho xogo iyo macluumaad badan oo ku xiiso galiya, hadda booqo oo subscribe dheh channelka Iliska Dunida oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelkeena nagulana soo biir caalamkan cusub oo aad ka faa'iidi doontid xogo iyo macluumaad ka yaabiya.